webiga Shabeelle waa webi aad u muhiimsan oo ka soo bilaabda buuraleyda Itoobiya ilaa uu dhamaadkiisa ka gaaro oo ah koonfurta bari ee Soomaaliya. Soomaaliya waxa uu ka maraa Hiiraan, Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe. webigan waxa uu quudiyaa malaayiin qof ah oo iskugu jiro muwaadiniinta Itoobiya iyo kuwa Soomaaliya. dhererkiisu waa 130 kiiloomitir. webigan waa laf-dhabarka nolosha dadka ku nool Itoobiya iyo Soomaaliya. inta meel uu maro webigan waxa uu ku leeyahay saameyn aad u weyn. dadku waxay ka helaan biyo nadiif ah. waxa kale oo ay ka helaan fursad shaqo oo ah abuurista beeraha iyo kalluumaysiga. waxa kale oo ay ka helaan dadku deegaan ku habboon xoolaha. webigan wuxuu awood u leeyahay inuu kobciyo dalagga beeraha sida galleyda, sisinta, digirta, bariiska iyo wixii la mid ah. magaalooyinka uu maro sida Beledweyne, Jowhar iyo Afgooye waxa ay ka faa'iidaan biyo aad u macaan oo caafimaadka u fiican. webigan sida uu faa'iido u leeyahay si la mid ah waxa uu leeyahay khasaaro. marka uu roobka zaid u da'o webigu waa uu fatahaadaa. fatahaadyadaas waxa ay saameeyaan nolosha dadka iyo tan beerahaba. waxa uu kaloo saameyn ku yeeshaa dhaqaalaha. marka uu roobka u yaraadana sida waqtiga abaarka ah webigan waa uu qalalaa. qalalkaas sidoo kale waxa uu saameeyaa dadka. dadku waxa ku dhaca biyo la'aan iyo abaar aad u daran. haddaba sidee baan ku ilaalin karnaa webigan ka shacab ahaan iyo ka dawlad ahaanba? webigan waxa lagu ilaalin karaa in wasakhda iyo wax walba oo dhibaato u keenayo sida jarista dhirta in laga ilaaliyo. waxa kale oo webigan lagu ilaalin karaa in la sameeyo wacyigelin oo dadka loo sheego webiga faa'iidada uu leeyahay iyo haddii dhibaato loo keenana khasaarada ay leedahay. waxa kale oo webigan lagu ilaalin karaa in biyo mareeno loo dhiso. sidoo kale waxa kale oo lagu ilaalin karaa in labada dawladood ee ah Soomaaliya iyo Itoobiya inay iska kaashadaan qaabka ay webigan u ilaalin lahaayeen.